qabiilkani waxay cunaan hilibka dadka sidoo kale waxay cunaan saxradooda. qabiilka Igoorka waa qabiil ka mid ah qabaa'ilada Hindiya kuwaas oo leh habdhaqan la yaab leh kaasoo ay la yaabtay dunidu. waxay degaan gobolka Uttar Pradesh khaasatan tuulada Varanasi ee wadanka Hindiya. waxa ay guryahooda ka dhistaan meelaha meydka lagu gubo iyagoo aaminsan inay barako ka helayaan. dambaska marka meydka la gubo ka soo hara ayaa ay marsadaan jirkooda oo idil. arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay inay ku cibaadaystaan meelaha meydka lagu gubo iyo in sidoo kale ay cunaan dadka dhintay oo aan la gubin hilibkooda. waxayna cabaan dhuuxooda taasoo ay u arkaan inay tahay cibaado. waxa kale oo midaas ka sii daran waxay cunaan saxradooda. ila fiiri muuqaalkan waxa wareysanaya wariye ka tirsan TV-ga CNN. ninkii la wareysanayay waxa uu si toos ah u cunayaa saxradiisa isagoo sidoo kalena ku qasbaya inuu cuno wariyihii wareysanayay. waxaan aragnaa in wariyihii iyo kaameramankiiba ay qiiqsadeen oo ay cararayaan isna uu ku cirsanay. waxa kale oo ay cunaan xayawaanka oo nool badanaa waxay ka cunaan madaxa. inta badan qabiilkani waa kuwa qaawan oo aan xiran wax dhara. waxay cabaan wadaadadoodu khamriga oo ay u aaminsan yihiin inay ugu dhowaanayaan ilaahooda shifaa ee ay aaminsan yihiin. qabiilkani waa kuwa aan danayn dhaqaalaha iyo maadiga. badanaa wadanka Hindiya Hinduismku waa ay gubaan meydka laakiin mararka qaar waxaa lagu tuuraa webiga waana halka ay ka helaan hilibka dadka ay cunaan.